بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عشر كان وحا إنوغا بلابان دونا أخرين تسالوين كجود. tusaalooyinka guud waxay isugu jiraan mowduucyadii aan soo baranay kulli sida shaqalada, laba shaqalka, shidka, hamsatul wasliga iyo sharciyo cusub oo aan baran doona. Tusaalooyinkan waxaan inta badan ka soo qaatay Quraanka Kariimka ah, gaar ahaan meelaha ugu dhibka badan ee aan qof walba sixi karin akhrintooda ilaa inuu soo bartay mooye. haddaad sida ay tahay u baratid tusaalooyinkan, waxaan Allah ka rajaynaa inaysan ku dhibi doonin akhrinta Quraanka meel alla meeshaad ka rabtid. Haddaba aan isla akhrino hingaadooda. Waaw kordhigan wa, hamza hoos dhigan nuun reeban in, wa in, yaa kordhigan siin reeban yes, wa in yes, iska jir ma dhahayna meeshaan wa in yes, waa inaad isku daydid sidaan u akhriyay oo kale. wa in yes, laam goodan baa reeban lube, wa in yaslube, haa goodan hu, wa in yaslubehu, miim goodan daal reeban mud, wa in yaslubhumul, daal goodan du, wa in yaslubhumul du, baa kordhigan alif reeban baa, wa in yaslubhumul dhubaa, baa goodan bu, wa in yaslubhumul dhubaabu, shiin kordhigan yaa reeban shay, wa in yaslubhumul dhubaabu shay, hamza laba kordhigan laam shadda al, wa in yaslubhumul dhubaabu shay'al, laam kordhigan alif reeban laa, wa in yaslubhumul dhubaabu shay'an laa, yaa kordhigan siin reeban yes, wa in yaslubhumul dhubaabu shay'an laa yes, taa kordhigan nuun reeban tan, wa in yaslubhumul dhubaabu shay'an laa yastan,
qaaf hoos dhigan qi وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ ذال قدن واو ريبن ذو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه هكذا هو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ميم هوس ديغان نون ريبان من وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه هكذا هو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه تاغودان تو دال كورديغان ميم شدادم تودم ميم هوسديغان مي تدمي راغودان رو تدمر كاف جودن لام شدة كل تدمر كل لام قرديغان لا تدمر كل شين قرديغان يا ريبان شي تدمر كل شيء حمزة هوس ديغان ميم ريبان إم حمزة دا waxaan ku xiraynaa toos miimka حمزة hoos dhiga miim reeban im aan dhahaynaa sababta miimka uu u imaadayna waxay tahay haddii laba shaqal ay ka daba imaado ba waxaa qasab ah quraanka gudihiisa in meeshaas miim yar uu noqdo waxaana la akhrinaa miimkaas kadib bacda lagu dhawaaqaa تدمر كل شيء با هوس دیگم بی تدمر كل شيء بي
Hamzah kor dengan mim reban am. Tudammiru kulla syai'im bi am. Ra hos dengan ri. Tudammiru kulla syai'im bi amri. Ra kor dengan ba syadda rab. Tudammiru kulla syai'im bi amri rab. Ba hos dengan bi. Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbi. Ha kor dengan alif reban ha. Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Fa kor dengan fa. Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha fa. Hamzah kor dengan sad reban as. تدمر كل شيء بأمر ربها ba kor dengan ba. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح. حاجد واو ربن حو. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا. لام kor dengan alif reban la. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا. Ya godan yu. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يؤمنون. Ra kor dengan alif gaban ra. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى.
waaw kor dhigan wa hamza hoos dhigan daal reeban id wa id qaaf kor dhigan alif reeban qaa wa id qaa haye meeshaan isku day adiga inaad akhrisid waxaan soo baranay in hamsatul wasliga waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya la isku xiro haddaba waxa ka horeeya hamsatul wasliga ma laha shaqal maanta eebelna waxaan arki jirnay inuu shaqal lahaado saanoo kale qur-aanka waad ku arki doontaa waxaad fiirinaya marka xarafkan aan shaqalka lahaynin xarafka kasii horeeya hadduu shaqal leeyahay asigaad isticmaale haddii kale waad sii wade kan kusii xigaad sii fiirinay hadda waawga shaqal ma laha waxaan fiirinaynaa waxa ka horeeya waawga waxa ka horeeya waawga waa laam laamkaas oo leh shaqalkaasoona ah gudniin hadda waan isticmaali karnaa laamkan kadib aan fiirino hamsatul wasliga waxa ka dambeeya hamsatul wasliga waxa ka dambeeya asna shaqal ma laha asal ahaantiisa wuxuu lahay reebniin laakiin reebniinkii hadda waxaa ka qaaday shadka ka dambeeya asiga oo meeshaas laba reebniina iska daba imaaday kii hore waa la tuuray saa darteed laamka wax shaqal ah uma harin waxayna ka dhigan tahay in aan laamkan la akhrinaynin oo ma akhrinayno waawga oo ma akhrinayno hamsatul wasliga ee walba isku xiraysay laamka ka dambeeyana ma akhrinayna oo shaqal ma laha marka waxaan isku xiraynaa laamkaas godan iyo laamkan shaddada leh haddaba sidaan u akhrinayo si fiican ula soco laam godan laam shadda lur wa id qaalur laam kor dhigan alif gaaban laa wa id qaaluu allah haagooda miim shaddahum wa id qaaluu allahum miim kor dhiga ma wa id qaaluu allahumma faa hoos dhigan yaa reeban fii daal hoos dhigan kaaf reeban dik fii dik sidoo kale meeshaanna waxaad u jeedaa in hamsatul wasliga waxa ka horeeya uusan shaqal lahaynin sida kii horoo kale waxaan sii fiirinaynaa waxa kasii horeeya oo noqday hadda raa hoos dhigan ra'daasa waxaan ku xiraynaa daalka ka dambeeya hamsatul wasliga raa hoos dhigan daal reeban rid fii dikrid haa kor dhigan ha fii dikridha baa kor dhigan alif reeban baa fii dikridhabaa yaa kor dhigan alif gaaban yaa baagoodan bu yaa bu nuun kor dhigan yaa shaddanay yaa bunay
Ya kordigan raraban yar. Ya bunayyar. Kaf kordigan mim shadda kam. Ya bunayyar kam. Mim kordigan ma. يا بني اركب معه عين kordigan a. يا بني اركب معه نون kordigan alif rabanna. يا بني اركب معنا hadda aan isla akhrino dhawaqooda وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى وإذ قالوا اللهم في ذكر اذهبا يا بني اركب معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته